isagoon tukan waa shahiid hadduu dowladda u dhinto dalka u dhinto difaaciisa waa shahiid ma tukado laga yaabo wax kaleeto inuu aragto ku jiro laakiin waa shahiid ciidankan waa ciidan jihaad ku jira kooda dhintaana shahiid yahay waa in la geliyo oo maskaxda laga geliyo oo qof walba inuu saa u dagaalamayo la geliyo dowladdu hadday istaraatiiji difaac leedahay oo dhab ay ka tahay dagaalku dadka kale oo dhan qadada way ka tegi karaan mushaharka waxaa laga soo reebaa macallimiinta waxaa laga soo reebaa baarlamaanka waxaa laga soo reebaa wasiirada tiradooda la dhimaa haddii 300 iyo imisa hadda baarlamaanka ku jira annaga horta hadda dowlad dhisbaan ku jirnaa moogta laba aqal iyo meelo kale iyo faajo moogta marna waxa waaye moogtahay sweetska dadka cuna marna waxa waaye raashinkii mainka ahaa miilka annaga miilkii aan heli kari la'ana soortii iyo bariiskii iyo cuntadii asaasiga ahayd ayaan u baahanahay buskud iyo macmacaan iyo doolshi ha noo dambeeyo marka niyo horta dagaal in la galo waxaa ka horeeya wa a'addu lahu uddatan qofka dagaal gelaya waxaa ka muuqata saansaantiisa marka meel askarigii dhaawaciisii daryeel fiican aanu haysan isbitaal fiican aanu haysan isbitaal gaar ah aanu lahayn caruurtiisii daryeel lahayn ya caruurtiisana arkayso siyaasiyiintiisu anigu ma ahay inaan maqaamka ninka siyaasiga ama baarlamaanka aan durayo maya waa u la baahan yahay laakiin hadii waxba kala horeeya ninka dalkii iyo nabadgelyadiisii difaacay